maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyay Axmed Madoobe waxay bilaabeen filim 7 sano 8 sano ka hor soo dhamaaday oo cabdi ilay uu waagiisii hore soo bilaabay argagaxiisa soo dhiibtay hubkii lagu qarxin lahaa Axmed Madoobe waaka waxa la qabtay ciidan uu soo diray hawiye ay soo dirsadeen oo la rabay daarood in xukunka looga tuuro oo Jubbaland lagu la wareego waxay soo dhiibay taliyaal ciidan oo loo soo diray inay laayaan saraakiisha ciidanka Jubbaland iyo madaxda maamul goboleedka Jubbaland waxay soo dhibay sargaalkii ugu sareeyay waa filimka goormuu dhamaaday filimkaas Axmed Madoobe ee aan dhahnay cabdi ilay baa soo bilaabo 2016 ayuu ka soo afjarmay geeska Afrikana waa laga fahmay beentiisana waa laga gungaaray ma mid cusub la keensado gobolka Gado dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu gacan sareysay Axmed Madoobe gabi ahaanba gacantiisa waa ka baxay wax yar shakhsiyaad yar baa ku sii wiswisle oo la rabaa in gacanta lagu soo dhigo qorshaha dawladda federaalka lagu qabanayo gobolka Jubbada Dhexe waa in la taageero oo bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogtaba ay taageerto wiilashii shalaysa soo dhiibay xog baan idin ka wada war soo dhawaada wadayaal waxa rabaa inaan muuqaalkan ku dul istaago isdiidooyinka siyaasadeed ee maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe uu hogaamiyo iyo dawladda federaalka Soomaaliya xogihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay iyo sidoo kale nin lagu magacaabo Cabdishakuur kuna magac dheer Faarso oo isagana shalayto lagu soo wirahayay hub oo la leeyahay hubka waxa uu soo dhiibay hawiya uu soo dhiibay oo waxa la yiri ku soo laa saraakiisha ciidanka daraawiishta Jubbaland iyo mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ku soo dilbaa la yiri isaga afkiisa ka qiroolay wasaasa la dhahay oo lagu soo wirayay oo maamulka degmada Dhooblayna gooyaha ka taagnaayeen oo ay leeyihiin waxaan fashilinay shabakad argagaxiso ah oo hawiye ay soo dirsadeen ayaa rabaa inaan muuqaalkan ku dul istaago soo dhawaada muuqaalka la eegsan aragtidina waa noo muhiim boqor waxa adiga ay kula muuqato nimankan baan ku horeynayaa wixii kale isdiidooyinka iyo sida loo kala gacan sareeyo iyo hawsha way ku dambeynaa adiga ay daawanayaan waxa laga yaabaa inaad nimankaas aadan aqoon badan u lahayn shalayta la soo bandhigayay horta ninka la yiraahdo Faarso ku magac dheer ee Cabdishakuur la yiraahdo baan taariikhdiisa marka hore inaga dhacaya waa nin dhalinyaro ah waa nin waxa weeye kamid aha ciidankii daraawiishta Jubbaland ee qabtay magaalada Kismaayo oo 12 sano ka hor waliba dagaalamay oo dhaawacmay waa nin waayihii ugu dambeeyay Nairobi joogay anigu dhowr asbuuc 3 asbuuc ka hor ayaan isaga wada hadalay waa nin saaxiibkaya shakhsiyad ahaantiisu nin xun ma aha haddii aysan duruufi waxa laynin nin xun ma aha waa nin social waa nin bulshada waxa weeye iskugu mid ay tahay waa nin aqoon u leh Jubbaland iyo deegaanadeeda aqoon u leh waa nin daraawiishta Jubbaland horay uga tirsanaa Axmed Madoobe dhalinyaradii uu ku tagay kursiga kamid ahaa way shakhsiyadiisa inta uu dhaafi maayo waxa wax yar ka taabanaya hubkan oo lagu soo sawiray ee uu sheegay in loo soo dhiibay oo loogu talagalay in jabhad lagu aasaaso horta hubkaas waxa iska leh nabad sugidda maamulka Jubbaland baa iska lahaa hubka ninka jooga magaalada Dhobley oo isaga ilma adeer yihiin ayaa horta hubka iska lahaa hub loo soo dhiibay Cabdishakuur oo dawlad federaal ay u soo dhiibtay ma jirin arin loo soo xil saartayna iyadana ma jirin oo dawladda federaalku ay u soo xil saaratay Cabdishakuur markaan wada hadlayna xamar buu joogay xamar buu ku sugnaa wuxuu waagi hore raacay musharaxiintii nin kamid ah oo lagu magacaabo Cabdullaahi Cali Barre ayuu ka raacay magaalada Nairobi aniga asaga waan sagootiyay halkaas Muqdisho tagay Muqdisho live kaga soo jiro halkan ka wada hadlaynay wax si gaar ah isaga loogu xil saartay oo la yiri orado jabhad loo aas oo libooyi iyo halka ka aas ma jiro deegaankaas hadii jabhad laga asaasayo marka horta jabhad la asaasayo waxa lagu qiimeeyaa deegaanka lagu aasasayo shuruudaha jiri iyo waxa weeye wadooyin loo maraa jira shuruudaha halkaas horta lagu aasaasay jabhada hadii la rabo libooyi laga asaasiyo Dhobley tusheeda dad baa degan dadka degan baa loo soo diri oo jabhada waxa asaasi nin guriga dadka reer baadiyaha garanaya oo yaqaana oo u dhashay
oo deegaanka ayaa loo dhiibayaa. waa marka xaqiiqada ka hadalla wey. waxba aniga cabdishakuur waa nin saaxiibka xumaan muu laho, laakiin xaqiiqadan ka hadlaya. waa nin sargaal haddii wax la siinayiyo haddii maamulka jubbaland lagu darayiyo waxaasoo dhan waxa weeye xaq buu leeyahay. weliba in mas-uul weyn laga dhigo xaq uu leeyahay, oo isaga aniga ma taagad garaynaya, taagad igama aha oo wallaahi waxaa laga yaabaa inuu daawanayo de waa nin iga warhaya, laakiin xaqiiqadan ka taabanaya. cabdishakuur marka waa nin active oo fiican buu ahaa, laakiin dowladda federaalku rag saraakiilay usoo wakiilato deegaankaas u xil saaran, raggiina weli ismayn dhiibin. hadday raggaa isdhiibaan ama isaga ay la socon lahaayeen waan qaadan lahayn oo barnaamijku sidaa ay tahay uu nagu geli lahaa, laakiin raggii weli ismayn dhiibin, hawlshooday wadaan. jabhadna lama aas-aasaye ciidan macawisley la yidhaahdo oo deegaanka marka horeba ka aas-aasnaa oo ku sugnaa oo mar axmed madoobe uu soo weeraray ayaa jira, kuwaana in la xoojiyo dadka deegaanka iyo sidoo kaleeto dowladda federaalkaba waa la qabaa. axmed madoobena duulaankuma aha, lamana amrin inay laayaan saraakiil jubbaland iyo mas-uuliyiin axmed madoobe inay laayaan laguma amrin. waa xaqiiqdooda haddaad doonaysaan. nimankaas macawisleyda waxaa la rabaa inay bartaas maraan, oo weliba dhoobley iyo deegaanka axmed madoobe uu ka taliya dhinac intay ka maraan bartaa iyo ay aadaan meesha la yidhaahdo bu-aale inay aadaan ayaa la qorsheynaya. wax hadda diyaarsanna ma aha oo hubkoodii iyo saanadoodiiba weli lama keenin. waa dhalinyaro iyagun hadda is-abaabulay kawana warsugaya dowladda federaalk ee soomaaliya. xaasha inay nin mas-uula ama iska daaba mas-uule inay qof meel nabadgeliyaa jooga ay dagaal ku qaadaan, amarna uma haystaan, mana yeelayaan, kamana suurtoodo, macquulla maaha. ninkaas marka hubka lagu sawiray nabad sugidda maamulka jubbaland baa iskale, axmed madoobe baa iskale. wax la abaabulay wey. waayihii dambena arrintaa way socotay. mar 90,000 baa la qabto, waad ogeydeenoo lasoo bandhigo o laleeyahay 90,000 ninkaasaa lagu soo diray oo waxba ka jirin, ama kama jiro. mar waxaa laleeyahay 400,000 baa laygu soo diro ina islaamaho axmed madoobe walaala yihiin oo afmadow haysta ayaa soo bandhigay. mar wax kaley soo bandhigaan. haddana waxaa soo socota niman argagixiso la dhihi doono nimankaasaa waxa weeye isa soo dhiibay oo waa raggii ugu sarsareeyo xasan baa la soo xidhiidhay. xasan waa argagixisaya, mas-uuliyiinta argagixisa mas-uuliyiin baa laga dhigaya. waxaa leeyahay xasan baa la soo xidhiidhayo waxa uu yidhi qarxiya magaalada kismaayo. way soo socotaa, maalin dhow waad arki doontaan. muuqaalkana halkaabaa inoo soo saari doonaa. waa qorsho saxaya oo soo socdoon ogsoonahay weeye oo xogtiisa hayo. waxaad arki doontaan kuwo kaleeto oo laleeyahay waxaa loo soo xilsaaray gobolka gado oo wayse soo dhiibeen iyagana. waxaasoo dhan baa soo socda. waa qorshayaal axmed madoobe u caadaystay weeye, laakiin waxba kama jiro, kulli waxba kama jiro. waxa waa farsamo la samaynayo wey. 90,000 ba waxba ka jirin. kan ina islaamee jooga afmadoobe wax soo araabe waxba ka jirin. cabdishakuur hubka cabdishakuur naftiisa isdhiibay, asaga naftiisa ayaa isdhiibay. nin sargaal u ahaa, muddo badan buu banaanka ku wareeray. waxa loo gacan haadiyey. dee waxa weye wax la siiyaayo, shixil la siiyaayo, lacag la siiyaayo, waa maamulku xaq u lahaa. markii horeba dulmi baa lagu sameeyey oo dulmi baa looga saaray systemkii uu ku jiray, oo waa la ceersado, waa la eryaday, isagu iskama tegin. cid u gacan haadisay oo kalena ma jirin. maamulkii uu ka tirsanaa u baa eriyey oo faquuqay oo dhibaato u geystay, isagoo weliba dhaawaca oo aan la dhaawicin oon xataa dhakhtar la geynin oo si fiican aan isbitaallo loo geynin. marka inuu maamulkiisi haddana iyo systemkiisii hadduu wax ka helayo dib ugu laabto ceeb maaha, ceeb maaha. laakiin waxaa ceeba inaan waxaan jirin la abaabulo oo wiilkiina lagu khasbo la yidhaahdo way aadaysa soo dhiibayso hub baan kugu sawiranaynaa oon dhahaynaa waa jabhad uu axmed xasan sheekh maxamuud uu aas-aasay oo daarood baa lagu afgabin rabayo, mas-uuliyiinta daaroodaa lagu leeyin rabayo, amniga daaroodkaa laga waxayn rabayo, maamulka daaroodkaa laga soo horjeedo. waxa in la abaabulo waa khiyaali weeye. bulshada in la marin habaabiyo ma aha. run ahaantii ceeb weeye in bulshada la marin habaabiyo oo been iyo waxaan jirin laga dhaadhiciyo. ceeb weeye in waqti 2025 soo galaya la yidhaahdo maanta hawiye ay nagu soo duulaya jubbaland qaadanaya, oo rag waaweyn ay meel la soo istaagaan. rag waaweyn odayaala ay meel la soo istaagaan dhahaan jubbaland waxa weeye hawiyaa nagu soo duulay, hawiyaayna qaadanaya, hawiyaa weerar inoogu jira bu oo lala kala ordo. in la yidhaahdo jabhad baa kenya lagu khalkhalgelinayey, oo amniga kenya lagu khalkhalgelinayey, oo waxa weeye mas-uuliyiin jubbaland la rabay in lagu laayo, oo jabhad baa la rabay in laga aasaaso axmed madoobe la dagaalamaysa. war billah calaykum ummadda yaa la wareerin ummadda yaa la wareerin. war billah calaykum wax kale oo ka doodaan baa jira
wax kaloo lagu doodi karaa jira dowladda dhexe dhaliilo wax ku filan way haysataa ku dhaliila waxaad ku dhaliilaysaan ee kale dhaliisha ay leedahay ciidankii baad kala furfurteen dagaalkii shabaab baad fashiliseen musuq maasuq baad samayseen shacab baad barakiciseen waxa dhaliilaha dowladda muuqda ee lagu dhaliili karo ha lagu dhaliilo laakiin waxaysan dhaliil aysan lahayn yaa dusha laga saarin hawiyanayaan been laga sheegin hawiye waa qabiilo waaweyn oo lafweyna weye waxay ku khaldan yihiin sheega qabaa'il dhan in la yidhahdo way nagu soo duuleen jubbaland bay qaadanayaan war hawiye xaggee jubbaland ka qaadan karaa xaggee ka degaan halkee qaadan karaa hawiye iyagii baaba waxa weye islaynayo waxa weye toodi haysataaye hawiyaha intuu soo duulo 2,000 kilomitr imaanaya xaggee u socdaa war dulmiga dadka laga daayo beentana ha la iska daayo xaqiiqadana ha laga rumeeyo ha laga run sheego hubkaas markaa war iyo xaal hubkaa nabad sugiddaa iskale wiilkaa faarse ahee markii horeba dulmiga maamulkiisi looga saaray ee la dulmiyey ayaa la yidhi hubkaasaan kugu sawiranaynaa oo waxaan dhahaynaa jabhad xasan uu abaabulayo weeye baan dhahaynaa baa la yidhi waxba kama jiro wax uboo khaalid uu soo dhiibay iyo wax uboo xasan uu soo dhiibay iyo wax uboo xamse uu soo dhiibay toona oo meeshaasi yaalla ma jiro taasina iyadana anaa beeninaya dowladdana lama shaqeeya anugu isku aragtina ma dhihin waa dowladda maalin walbaan dhaliisheeda sheegayaad aragteen laakiin sidaasi lamida dooni maayo in laga been sheego oo been dusha laga saarana iyadana ma doonayo taasi waa midda kaleeto gobolka gadow iyo isdiidooyinka siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo axmed madoobe gobolka gadow waqti xaadirkan si ay isku bedeli doonto lama garanayo oo ninka axmed la yidhahdo madoobe la yidhahdo waa nin dhagar badan oo khiyaamo badan oo balaayo o dhan buu la shaqeeya ururadii argagixisadii waxaasoo dhan buu la shaqeeya waa isbedeli karaa laakiin waqti xaadirkan dowladda federaalka ku gacan sarreeya axmed madoobe gobolka gadow waa laga faramaroojiyey waxba gacan oguma jiro ninkii maxamuud sayid aha ee la dirayna kura yaroo weligaa maad aragtaa u dabadhoon ari oo meel xoolaha geela dabadhoonka u oo kale dabadhoon wax ma laga dhegaysanaya meel baan kasoo sahmiyey oo waa barwaaqa haddii la yidhaahdo ma la dhegaysanaya geela ha lagu raro ama reerka ha lagu raro ma la dhegaysanaya sidii buu horta noqday oo gobolka gadow cidna ma dhegaysanayso waxba ma tihid baa la yidhi sheekh orod nin baa kusoo dirsaday ninka kusoo dirsaday cagaha u tuutuuji baa la yidhi oo kismaayo tag duqii horta ceeb baa ka raacday magaalada doolow dowladda federaalka la wareegtay baar dheere dowladda federaalka la wareegtay beled xaawo dowladda federaalka la wareegtay garbaharey dowladda federaalka la wareegtay luuq baa dhiman luuq weli dhinacumayn bixin axmed madoobena gacan kuma hayo dowladda federaalkana gacan kuma hayso macallim oo iska dhex taataagan oo etoobiyaankana xoogaa ka qaata oo etoobiyaanka xoogaa uu ka qaadanayeen laga xidhxidhay axmed madoobena xoogaa yar gacan saar la leh aadna aan ugu kalsoonayn ayaa dhex taataagan ku-xigeenkiisana dowladda federaalku la shaqaynaya marka gobolka gadow markan camuuman laysku keeno gacanta axmed madoobe intii yarayde marka horeba gacan uguma jirine intii yarayde uu kala shaqaynayey ilihii yaryaraay uu kala shaqaynaya waa laga dhaboobay waa laga xidhay waa laga malaasay dowladda federaalkay hadda yay hoos tagtaa wax isbedeli doono lama garanayo siyaasadda soomaaliya waa iska interest weye dan shaksiyadeed bay inta badan ku dhisan tahay dan shacab kuma dhisna mar walba wax waa isbedeli karaa laakiin waqti xaadirka dowladda federaalka iyadana ku gacan saraysa duqi axmed madoobaha raas camboni buu u malaynayay oo xoogaa waxa weeye uu shacabkiisu u xidhnaayo dee faamili ahaan iyo waxay xoogaa ogaadeen ahaan iyo hawi ay ugu soo dulay iyo balaayo laga dhaadhiciyeen weli daaqad uu ka galo gobolka gadow laayahay daaqad uu ka galo maxamuud sayid iyo kii wasiirka amniga la dirayna iyagoon waxba haynin ayay meel kuudkuududaan taasna waa midaasoo waa gobolka gadow isdiidooyinka siyaasadeed ee jubbaland iyo dowladda federaalku weli waa taagan tahay dowladda federaalku go-aankeeda markaan eegno wixii dee dib u qarsoon garan mayno laakiin waxaa hadda muuqda iyo xogaha naga soo gaadhay markaynu isku dardarno go-aankeedu waa gobolka gadow inay la wareegto gobolka gadow markay gacan ku-hayntiisa dhammaan la wareegto oo iyadoo ay gacanta ku dhigto inay 3 wado laga galo gobolka jubbada dhexe oo kooxda khawaarijta weerar lagu qaado waa xaggee 3 wado laga galay waa wadada dhuyac garoon ee hadda ay jubbaland ka been abuuranaysa inay jabhad baa lagu aasaasay oo jabhadii ay soo dhiibto fashilino kooxaha argagixiso oo jubbaland weerar ku ahayd ayaan fashilinay leeyihiin waxba kama jiro dowladdu
macawisley ciidana la rabaa in deegaankaas laga asaaso wayba asaasan yihiin in dowladdu ay taageerto taageerada dowladda ka maqan kadibna dhiyac garoon ay maraan wadada dheer ay qaadaan kooxaha qawaarita Axmed Madoobe iyo systemkiisa wixiisa nina kuma leexanayo barta bu'aal ay ka aadaan dagaal halka ay ka furaan wadada labaadna waa wadada Ceelwaaq oo waxaa la rabaa in Ceelwaaq ciidanka jooga la xoojiyo kadibna halka iyagana ay dagaal kaga soo furaan gobolka Jubbada Dhexe wadada saddexaadna waa wadada Baar Dheere oo iyadu halbowle ah